الله الرحمن الرحيم شركة بلعت كسعودي وأها إلا يسكوي ما توضع تشي wixii xumaadayna laga wada hadlo waxa soo socdana laga wada tashado ajantiisuna ha wada tashi shirka waanu ka baxay ka gudoomiyahan iyo xildhibaano kamida baarlamaanka qaatumo iyo beesha ugaariyahan gaar ahaan beesha ugaariyahan kadib markaanu tashi dheer wada galnay shirka waanu ka biyadiidnay waanu ka baxnay waata gudoomiye sababaha keenay inaad ka baxdaan shirka maxaa kamida inkastoo aad ka dhawaajisay adiga iyo xildhibaano kaleba inaad ka baxdaan shirka shirka waanu ka biyadiidnay waxaanu u aragnay shirkaasi inaanu si sax u oran kala hortegi mayno shirka inaanu diidnay oo ka biyadiidnay wala aragnay sidii loogu talagalay inaanu u socon wax kale oo hadda faahfaahin aanu ka bixinayna oo dheeraadana ma jirto waqtigeeda iyo munaasibkeeda ayaanu la sugaynaa haddii lahaydna waa tahay gudoomiye inkastoo xukuumadda iyo idinkaba khilaaf idin soo kala dhex galay sida nagu maqaalo ah markaa ma waxaa jira shirar kale oo aad ka wadaan deegaanka mise wadahadal baad la gelisaan maamul goboleedka khaatumo maamul goboleedka khaatumo annaga ka mid ah annagu waxaanu nahay dadku horta qaadiyay fahmin waxaanu nahay maamul goboleedka khaatumaanu nahay khaatumaanu ka mid nahay anigu waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamaanka khaatumana kama aanan tegin khaatumaanu ahaan doonaa waanu nahay waanuna ahaan doonaa waxa aanu ka biyadiidnay waxa weeye shirka wada tashida khaatumo wada hadal mucaarad manihin waxaanu nahay dadkii khaatumo mas-uuliyiintii iyo xildhibaanadii khaatumo ayaanu nahay oo ka biyadiiday shirka qaabka uu u socdo waa tahay bal haddii aad xoogaa yar noo guud marto xaalaha xilligani aad ka tabanaysaan maamulka iyo sidoo kale xukuumadda xilligani talada hayse ee uu hogaamiyey madaxweyne cali khaliif galeydh maxaa ka mid ah run ahaantii arrintaa ma doonayno inaanu ka hor dhacno xilligeeda ayaanu la sugi doonaa annagu waxaan nahay mas-uuliyiintii khaatumo oo ka biyadiiday shirka ka wada tashiga ee ballicad ka socda kamana hordhici doono haddii lahaydmo xilligeeda iyo waqtigeeda ayaanu la sugi doonaa wax faahfaahin oo haddeer ka bixinaynaa ma jiro waa tahay marka ugu dambeyntii maxaad xal u aragtaa ma laga yaabaase inaad shirar dambe aad iskugu timaadaan idinka iyo maamulka aad ka tirsan tahay waa laga yaabaa inaanu iskugu nimaadno haddii aanu iskugu nimaadno oo la aqbalo arrintaana wixii madmadow ee noo muuqda waanu ka wada hadli doonaa mas-uuliyiinta sarsare ee khaatumo haddii ay dhici weydo inaanu iskugu nimaadnana xilligeeda iyo waqtigeeda ayaanu la sugi doonaa haddii lahayd waa tahay dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka maamul goboleedka khaatumo yuusuf maxamed ismaaciil shirtag oo ku sugan deegaanka ballicad ee gobolka cayn oo aan wareysi la yeeshay aad baad umahadsantahay gudoomiye